أنا نسيبك ما أميسن نسيبك وحا كفائديستو الشخصية وديارسن الحين أنتو سوق نكور عبارو تاعنا سير كسافيرنا وح أم لياو ده إن ريونا إن لو كنا صوتك كجوجو وكله هذا كل موسيقى أفرشان وإنا سميها become the biggest artist in the city. suugaanta iyo gabayadu iyo fanka iyo heesaha iyo markay noqoto sawirada waxa cimri dheer sawirada Soomaalidu inay yihiin dad aad u farac weyn waxa kaliya raadka laga hayo waxa weeye biyada farshaxanka ku sawiran ee Masar iyo ciyaaraha dadkaas ay ciyaarayaan iyo ciyaaraha Soomaaliya laga ciyaaro inay same yihiin waxa kaliya lagu cadeyn karo waa artiga la hayo waxaan si lagu barto adoonan magac iyo lacag iyo qaaliyo ku raadinayn waxaan horta dadku soo bandhig because of adoon lagu aqoonin baartayna wax dadka ka gado mugta ani marka waxa ka shaqeynay ama hadda ka shaqeynay waxa waa marka art la dhaho qofku horeey maskaxda ku soo dhacayna ani miri qof caadi inaan noqdo waxa raba qof markii la arko oo markii barnaamij la qabanayo laga sheekeeyo marka caqabadahaas oo kale iyo dadkaas hadalladaas oo kale ku dhaxaan marna ma kugu soo dhacdaa inaad aado wadamada fursaduhu ay aad u tira badan yihiin oo Soomaaliya ay adag tahay inaad horumar badan ka samayso marna madaxaada ma ku soo dhacdo qofka Soomaaliya wuxuu leeyahay war saaxiib arti asameynaysi wadankan aad joogtid wax macna kama sameeyo هذا يوروب إيميلها تيله والله العقب بدن برجاسنا أنت سو ملايين برجاسي سنة أنا مركب ماشي أصعد وحوا إنا مالين فرشحن كيجي أنت سكون الدور الوقت أنا ودن كيجي جو أنا نتاريبين أنا ميل كلا عادي دنيا إنا إسكجوا ودن كيجي ودن حماها لكن والولد جي شابده إن ودن كيجي ودن حمية شابده سوى الولد جي هذا وحق ترتمع international Somali أول قد عاي لندن وأود واي إنا لندن تو because of passport Somalia واللي وقتي welcome to Puntland صاحب يال سودو هذا ميل بجوكتان وحا مانتي نلا جوغو مرتي halkan noogu ah podcastigeenan forsi oo magaciisu yahay Cabdinaasir Cabdiqaadir banala jooga magaalada Garowe maalmihii u dambeysay uu joogay bandhiga bugaagta Puntland Book Fair soo dhow Cabdinaasir wadwahay hada ma santahay farxada ay tahay inaan maanta kula fadhiyo waana ku faraxsanahay casuumada Cabdinaasir meeshaan waxa weeye minankaaga waaye maanta waxaanu rabnaa inaanu programkan ku falanqeyno ama ku sheekaysano Cabdinaasir oo waqti badan runtii geliyay artiska Soomaaliya caana ku ah darbiyadii aad ku qurux badnaa u sameeyay balse maanta waxaan rabnaa Cabdinaasir ka taqaanaan ama forsi waa kuma horta inaad wax badan ka ogaataan xaguu hayaankiisan artistnimadu ka soo bilowday markuu aad magacaaga forsi wuxuu yahay magaca horta noo sharax xagee uu ka yimid iyo bilowgaagii halkaad ku dhalatay halkaad ku barbaadhay si kooban magacayga caadiga waa Cabdinaasir Cabdiqaadir Maxamed dadka u yaqaanaan forsi ama Somali artist magaca forsi wuxuu ka yimaaday awey hooyada dhale oo ah Cabdalla Umar Cabdalla Cismaan marka afarsi sawaha ku qaata magacaasna wuxuu ahaa maadaama uu unique yahay family name yahay afku u fudud yahay qoraal ahaan fudud yahay durba xasuusan karo oo forsi amal ah forsi waa nin dhalinyaro ah waa nin howlkar ah waa nin yaqaan meesha uu rabo inuu ogna meesha uu rabo inuu u socdo waa nin og meesha uu u socdo waa nin farshaxaniste ah waa wiil Soomaaliyeed farshaxanka waxa bilaabay yaraantii laakiin si guud waxa u soo gudagalay 12kii ku dhashay magaalada Muqdisho ku barbaaray magaalada Boosaaso haddana ku soo laabtay Muqdisho kadibna xili ama waqtiga shaqooyinkiisa ama shaqada meesha ugu badneed ku qaatay ahayd Kismaayo haddana isagoo qof kale ah dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ka dhigay artiga in dadka jeclaadaan in qof walba aamin inuu wax sawir karo in dadka ay ku dhiiradaan artistiyaal noqdaan iska wadaa artistiyaasha caadiga ahaayeen magaalada joogeen iyaga naftirkoodii in inspiration uu u noqdo forsi maaragtay hurdada ka kiciyo forsi waa nin raba inuu dunida tuso farshaxanka Soomaaliya heerka uu ka taagan yahay iyo soo inay jiraan artistiyaal Soomaaliya ee dunida la tartami karto forsi waa nin kusoo guuleystay abaalmarino badan oo ay ka mid ahayd best artist of the year 2024
iyo Somali Leadership Award, Global Sustainable Development iyo shahaado sharaf oo cadadooda ama tirada la soo koobi karin, laakiin intaas ay ugu muhiimsan tahay inuu maalin uun ku matalo Soomaaliya ama magaca Soomaaliyeed u geeyo dunida, jecelna horumarka, jecelna inuu dadka caawiyo, jecelna in mar kastaba diyaar u ah inuu maaragtay horumar sameeyo. Fursi intuu yahay lama soo koobi karo, laakiin xaslaha intaas aad u aqoonsan. aad iyo aad fursi saaxiib, horta runtii waa kugu hambalyaynayaa sida quruxda badan oo naftaada aad waxa weeye ugu hadashay. dadka qaybtood ma awoodaan intaa naftooda positive ama dhanka wanaagsan naftooda inay marar badan ka sheegaan. qofku markuu naftiisa sawir fiican ka haysto buu dadka kalena wax tari karayaa runtii. marka waa kugu ammaanayaa si qurux badan aad uga sheekaysay bilowgaagii ilaa iyo dhalashadaadii ilaa iyo yaraantaadii iyo halkaad kasoo ambaqaaday. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, fursigaa sheegtay oo biladaha badan qaatay, hamiga intaa la eg haysta, self confidence-ga weyn naftiisa ku qaba, bilowgiisii hore markay noqoto noloshaada artistnimada xaggee kasoo bilaawata? aniga horta dadka badan waxay u weydiiyaan artska yaa ku bare. si guud sawd ognahay qofka wax kasta uu yahay meesha uu wax ka barto ama ay kasoo bilaadaan hooyadiis. aniga hooyadii artist ahayd, artska dadka ku shaqeysta ma, laakiin dadka artska u bilaaban yahay ay jecel ahayd. iyadaa artska ay bilowday kadib markii ay ogaatay ama ay aragtay shakhsiyadeeda inay u sameysanahay shakhsi artist ahaan. iyadaa marka waxyaabaha marka iskoolka la sawirayo oo kale, caruurta kale markay walaalihii markay soo baxaan oo kale iskoolka laga imaado, TV aa jiri TV-ga la daaranaa, cartoons iyo waxba la iska daawi jiray. ani laakiin artist sameyn jiray. qol dhan waxaa jiray guriga, qol dhan waxaa jiray 6 mitir oo loogu talagalay fadhiga. waxaa ana lahaan jiray macnaha inaan wax un ku sawiro. hooyadii marka waxyaabaha igu soo adkaaday iskoolka iyada iga caawin jirtay. hadeen muddo kadib markii capacity-ga farshaxankii uu weynaaday si fiican u sii ambaqaaday, waxa dhacday markii dambe in abtigii hoosh u wareegtay macnaha oo ahaa ninka in abtigii hoosh u wareegtay oo ahaa ninka marka horeba maamada baray macnaha. oo ilaa hadda macnaha dadka waxa waaye oo artiga kuma shaqeysto, laakiin dadka jecel inay sawiraan sameeyaan waa isaga. laakiin shakhsiyadiisa asal ahaan wuxuu ahaa dadka footooyinkii hore ee sawirada lagu geli jiray, dadka sawirada dadka ka qaado ahaan jiray. experience-kiisa waa photography waaye aad iyo oo sawirada caadiga qaadi jiray. markaasay ku wareegtay hawsha. isaga hawsha ku wareegtay, isaga yaa marka iga caawin jiray sida dadka loo sawiro, sida maaragtay waxyaabaha igu adag loo sawiro. dhuxul intuu soo qaato darbi intuu igeeyo ku sawiri jiray. dhuxul marka anigana waa ka daba sawiri jiray. marka safar u galay, boosasaan joognay waagaas, safar u galay. markaas haddana dib u soo laabtay, wuxuu arkay sawirkii hadda koor uu igu sawiray dhuxusha darbiga. sawiradaasoo badan inuu darbiga ku sawirayno karaktero kala duwanah. iskool waxaa dhigi jiray boosas marka la dhaho Xaaji Mire oo aan dugsiga dhexe kasoo baxay. iskoolkaas marka waxaa jiri jirtay markii class activity la sameynaa sanad dugsiyeedka, wuxuu ahaa galaaska ugu horeeyay ee markii wafdi ama dad imaanayaan galaaska ugu horeeyay laga bilaabay la soo marsiinay afraad ba ahay. markaas galaaska ugu horeeyay la soo marsiinay galaaskii uu ahaa sabab la xiriirda artska. haddana dee iskoolka waxaa ahaa dadka kaalinta koowaad kale mar kastaba oo labaadkayga ilaa iyo sideedaadkayga kaalinta koowaad geli jiray. waxaa jirta hal sano oo toddobaad ahaa kaalin labaad kale oo ka carooday, laakiin inta kale waxaa ahaa dad qof oo kaalinta koowaad kale. iskoolka marka isagoo ii og in ahay farshaxaniisaha iskoolka, kaalinta koowaadna aan fasalkayga hogaamiye u ahay, wuxuu sameeyay marka iskoolka free buu iga dhigay oo dadka lacagta marka laga qaaday iskoolka aniga free ku dhigi jiray. gelinka dambena macallin iskool ahaa. marka alxamdulillah ka dambe iskoolkii dugsiga dhex marka dhimay ka soo tagay Muqdisho imaaday. ka dambe Muqdishadii ayaa waxa la kulmay artistayaal waaweyn oo shaqada iiga horeeyay darbiga sameynay, darbiyo waxa sameynay. marka artistayaasha naftarkooda kulligood dooqiga mood ahaan, laakiin qofka aniga aan ka dhex arko inaan isku dhownahay ama isla jaan qaadi karno ayaa ka dhex raadinaya. muddo kadib sidii baa
raadintii bilaabay artistayaal badan baa la shaqeynayay waxaa jira artistii ugu horeeya loo kale muxuu ahaa Cabdiraxmaan Siyaad oo ku magac dheer ee ka midnimo oo runtii dhigar qofka ugu horeeyay marka Muqdisho ma brush idii buu ahaa isagoo meel fadhiyo marka meel sawira taw waxa ku dhahay saaxib aninin artist ah waxa sawiri kara carruurta moogtahay markay yar yihiin adigu ku sawiri karaan laakiin shakhsiyadaada ma keenayaan qof maaragtay tinta saas u tagtaan ha marka waxa ku dhahay nin wax sawiri kara ahay yidib markuu idii brushka meeshan tagay wixii waa qalday laakiin wuxuu dhasaa ma ahsan sameey ka dambe artistayaashii inaan la janqaada bilaabay marba artistayaal la kulmaayay marka dambe waxa jirta marka artiste la dhaho ama macallinkii yaa dhihi karo Aadan Faarax Afi oo isagu hadda ay dadka Soomaalida dhan u yaqaanaan Aabid Ducaale musalsalkii Haboon oo ka ahaa Jilaawin ha waa artiste weyn ninkaas idan gaban isaga marka kaanu artistnimada kuma aqoon inuu yahay dad badan ma yaqaanaan ha artiste weyn isaga marka waxay bilaabay 15 maalmood oo character sida dadka loo sawiro si professionalism sidii marka ku hormaray ka dambana maadaama aan wax barta ahay wixii ana raadsaday maadaama saaxada soo koray research badan aan sameeyay dadaal badan aan sameeyay scholarship oo residency ah ee Nairobi aad waa ka soo laabtay alxamdulillah inta aadan residency hawlaha aanu gelin waqti intee la egbeeyd waqtiga hore inta aadan bilaawin artistnimadan weyn oo aad waxbarashada u galaysay hawlaha intaan gaarin oo aad waqtiga badan galisay inta kale waqti intee la eg bay ahayd maxay sayd caqabadii kuugu weyneed oo ka hortimid oo laga yaabo inay ku niyad jabin lahayd haddii aad sidaan ka jilicsanaan lahayd balse diiday inaad isdhiibto wala wax isleeyahay 12 xitaa ani familkeyga inkastoo family wanaagsan ay ahaayeen laakiin dadka qaar ma ogoleen inaan artist noqdo because of concept oo dadka art Soomaalida dhan concept waxay ka haystaan artska dambi waa laakiin qofka marka dhahay sababta ii sheeg kulliya nabi cali sallallahu alayhi wasallam laakiin sabab ay jirto loo dambiyay sababta ma ku sheegi karo qofka because of ana dhan buu haysanaa message oo dambi way ya dambi way marka dambi way naftarkeeda qof wuxuu ku leeyahay koobkan ay haysatid hadaa sawirtid waa dambi macna meeshaas ay naga joogtaa macna artska horta bulshada ku dhaqanahay caqabad ugu weyn waxay bulshada ku dhaqanahay oo artiga fahansaneen iyo wadankii oo aan lahayn xitaa artiga marka baratid aad rabto inaad baratid meel laga barto aan lahayn qofka barta laftarkiisana dadka ka shaqeeya isan dhaqaale badanna ku shaqeyn professionkaas oo dhan uu yahay mid aan dhaqaalaba in laga sameyn karo ama qof mustaqbal ka dhisan kara inaan u muuqan isigu doorta artistayaasha laba nooc waaye qofna wuxuu ugu jira artiga inuu dhaqaale ka sameeyo laakiin dhaqaale ka sameeyna waxa waa aqoontii loo soo dhiibay oo kii ka horeeyay uu bare uu ku sii shaqeysanaa dhaqaale badan ma xitaa isagana ma rabo inuu hormariyo cilmi ahaan dhaqaalaha inuu isku hormariyo mar qofna waa professional marka caqabada ugu weyn waxay horta community ama society artiga ma fahansan ko labo dambi waa saddex qofka artista shakhsiyadiisa ma aaminsanaba inuu dadkan wax ka qaadi karo afar meel ka baritid ma jirto shan hadaa baritid qalabkeeda ma haysid qalabkeeda meel ka heli karto ma jirto lix suuq ma jiro wixii waa baratay qalabkii waa heshay haddana suuqeeda ma jiro markaan ku dhahay waxaa waaye markii laisku soo doodo community ma fahansanaba macnaha arrinta koowaad baan kaaga bilaabaya waxaan rabnaa caqabadahan si uga gudubtay in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo jecel oo laga yaabo markay isdhahan bilaawa intii ka hortimid ay ka hortimaado wiilihii xilligan la joogo marka waxaan rabnaa si uga gudubtay inay wax ka bartaan tan koowaad ah fikirka guud oo ah waxaan inaysan ahayn wax ma aragtay xaaraana ama aysan dambi tahay wax la sawiro iyo inaad aqoonti hesho labada wado sida uga gudubtay caqabadaha xaqadu madha horta alxamdulillah ilaahay mahad iska leh laga yaabo muuqaalkan dad badan inuu gaaro daawanayaan laga yaabo culimo inuu gaaro laga yaabo dad iga aqoon badan inay gaaraan laakiin aniga Cabdinaasir ahaan ma ogtahay ilaahay si gooni ii sameeyay oo unique ah marka wax aan ku dhex jiro ama cycle-ka aan ku dhex jiro haddaan wax badan ka ogeyn waxa fudud in qof kasta ibedelo qof kasta wuxuu rabo inuu ii sheego isaga naftirkiisa soo ogeyn inuu sax yahay inuu saxsaneen macna wajahada ka leexiyo wada haddaan ogeyn waxa aan ku dhex jirto information fiican taa kaysan
aniga horta waxyaabaha ama caqabadaha sababa ugu gudbo waxaa ka mid ahayd kuwa horta nin wax barta ah oo cilmi leh aqoon leh aaminsan wax walba in la baran karo laakiin wado loo maray inay jirto macnaha waxa la baran kara ma jiro laakiin wado loo barta in la labo waxaan horta inay kaa go-anta inaan jeceshahay qof kasto markuu rabo inuu qof cusub noqdo ama wax cusub rabo inuu bilaabo laazim meel kasta caqabad ka imaan kartaa familkaaga ama society-ga ama nafsiyan shakhsiyadaada yaa waxay kaa dhaadhicinaybo inaan waxaan samayn karin marka anuu aqoon leh oo nafsadeediina aaminsan inaan waxaan samayn karo jacaylna u haya baashan waan ku ahay waxa isweydiiyey haddaa waxaan jeceshahay oo cilmigeeda aad leedahay oo energy aan u haysid wax ka hor imaan kara maxay yihiin dadka okay ani dadka bedelaab dadka ka bilaaba iyagan bedelaab ani waxa la qofku ama dadka way ku bedelan ama adaa bedelay mugti haadiya waxa dhaa marka ana bedelay dadka see ku bedelay marka waxa dhaa inaan abuuraa society ama community art inaan abuuraa wayna activity badan sameeyaa wayna social media ama meelaha ay joogaan ugu dhaxgala horta u taga tusaa aragtida ay haystaan maahan aragti kale oo positive ah inay jirto macnaha aan ka dhix galo inta dadka bedelan ka hor waa in aqoon hesho inaad activity samayso inaad dadkii sawirkii badho oo community-ga awoodho laftarkeeda wax ka sii horeysa inaad aqoonta hesho aqoonta xageedu madh 2022 waxaa jirtay residency oo meesha horta ugu mahad celinayo cabdiqaadir shaacir ama cabdiqaadir shaacir oo ku magac dheer caato hadda directorka masrax production ah oo runtii dhihi karo maanta meesha taaganahay iyo aqoonta aan leeyahay markii laga soo tago iyo macallimiinta aniga ka faa'iideys markii laga soo tago cilmiga waa gooni laakiin inaad talaabo kale qaado oo horumar leena waa gooni oo toos ugu ifiyo qofkaas dhihi karo maanta indhaha uu ii furo waxa waaye cabdiqaadir sheekh oo aqoontii cilmigii art ahaan ma ahane laakiin dhankan kale ee hor socodka inaad dunida la jaan qaado ee tahay waa cabdiqaadir sheekh oo runta dhihi karo waxa ii abuuray jaanis ah inaan maanta qofka ahay ku soo baxo residency marka waxaa jiray Nairobi 2022 March aan ka helay oo art exchange la dhaho oo runtii nolosheeda wax weyn ka bedelay waa 2022 laakiin 2022 ka hor artist waa ahaa oo 2012 soo bilaabay 10 sano 10 years waxa ku jira oo aati practical ahaan u bartay theory ma waa practical markaas laakiin waa practical ma ku taqaanay magaalada Maxamed Sawir jidham ku shaqeyn jiray kaliya naftaada markaas team waxa jira team work ahaan u shaqeyn jirnay magac guud ku shaqeyn jirnay oo teamku leeyahay laakiin waxa ahayd aragti ama fikir in mustaqbalka hadda meel fiican gaarno in aan si guud u wada gaarnay laakiin markii dambe ay fikraddaas ku bedeshay inuu fikraddaas ama mustaqbalkaas uu shakhsi gaar ah sheegtay macnaha anna ay waajib ugu noqotay inaan teamka ka haro gaar u baxdo oo shakhsiyadeedii markaas brandingay soo dhiso shakhsiyadeeda qofka ah soo dhiso waxa dhacay marka 22kii residency-ga hele kor marka waxa aaminsanaa haddaanan rinji qaali haysanin ama haddaanan burush qaali haysanin ama haddaanan sida artistaha caalamka ee hadda arko ee tayada leh ee magaca leh shaqada meeshu isaga hadda uu joogo haddaana ani ka bilaabay inaan waxba noqon karin laakiin isaga meel buu ka soo bilaabay isaga meeshu ka soo bilaabay ma aha meeshu taagan yahay waa meesha hadda uu joogo laakiin meeshu ka soo bilaabay inaan ka soo bilaabo inaan fikirkiina meesha ka soo bilaabay kama soo bilaabin fikradda waxa ka bilaabay meeshu isaga joogo meel sare macnaha markii dambe Nairobi aan tagnay residency-ga halna bilaan qaadanay qof kale cusub ku soo baxay waxaan bartay rinjiga mid kastaba inuu macno gooni leeyahay rinjiga qaar la abuuro iyo rinjiga qaar la abuurin haddaa rabto inaad murug ka hadasho waxaa jirta rinji gooni loogu talagalay haddaa rabto inaad habeen farshaxan ka dhigto waxaa jirta rinji gooni loogu talagalay haddaa rabto inaad farxad ka hadasho waxaa jirta rinji gooni loogu talagalay jacayl haddaa rabto jacayl inaad ka hadasho waxaa jirta rinji gooni loogu talagalay ma aha inaad rinji kasta iska soo qaado meesha geyso nabadda haddaa rabto inaad ka hadasho waa inaad midabo cadaan isticmaashaa barwaaqada waa inaad midabo cagaar isticmaashaa daacadnimada waa inaad rinji jaale isticmaashaa jacaylka
marna wuxuu noqdaa inaa guduud isticmaasho dagaalka marna wuxuu noqdaa inaa rinji guduud isticmaasho shakhsiyadda qofka aad tahay ee attitude ahaan inaa muujiso waa inaa madow isticmaashaa sometimes madow waa inaa murug isticmaashaa marka residency soo qaatay ee aan magaalada kusoo laabtay waxaa noqday qof kale shakhsi kale message kale waxaa noqday marka hore creative-ka waxaa la dhahaa creative-ka haddii waxa ay haysato haba yaraadaane haddii aadan waxba ka samayn karin marka wax weynayso waxba ma samayn karin markaa soo laabtay marka waa fikir waxaa ka fikiray waxaa ani aada u isticmaalaa biyaha qajaclayaasha caadiga la isticmaalo qofka waxaa qof aada biyaha badan aada u isticmaalo waxaa jirta marka farshaxan aan ka sameeyey caagado waxaa arkay caagadihii inay guriga iga buuxiyeen ana okay residency soo qaadatay waxyaabo badan soo aragtay caagadaha ka bilaabay waa lala yaabay farshaxan cajaa'ib soo bandhigay lacagta shilin Soomaaliya farshaxan ka sameeyey geedka caadiga ah ee la jaro farshaxan ka sameeyey marka waxaa jirta bandhig aan kusoo bandhigay 15 May oo madaxweynaha xilliga doorashadii la doortay ku aadanayd Xasan Sheekh Maxamuud waxaa sawir marka sawirkaas wuxuu ahaa sawirka ugu badan waqtiga qaato Muqdisho soo ekaaneed 2030 cajiib madaxweynaha wuu yaabay ani marka waxa ahaa qofka ugu dambeeyay ee la rabo madaxweynaha inuu soo maro meesha ka soo galayna meesha agteedii ahayd uu fiiri waxa la mid madaxweyne halkaan ma meesha ka bilaawaydi wayna halkaa soo martaa madaxweynaha intuu soo galin ka hor cabaar u taagnaa sawirka soo fiirina markaas loo soo maro wuxuu dhahay waxa u maleeyaabo muuqaalkaas waa la heli karaa waxa u maleeyaabo dhahay inaan riyoonay like inaan 2030 ka joogo oo kale marka wax yar ku daraya oo ilaa wuxuu ahaa si kasta aqoon iyo xirfad u leedahay haddii aadan ku darin perspective oo adiga gooni ku ah oo lagu astayn karo oo lagu astaameyn karo aragti adiga ku style gaar ah gooni ku ah haddaadan ku darin waxaa la mid noqonaya dadka magaalada jooga aniga farshaxankii marka waxaa ku daray style aniga gooni ah oo iga dhigaayo ama farshaxankaas ka dhigaayo inuu forsi sameeyo iyadoon signature la arkin magaca siixay iyadoon la arkin spice ku gaar spice ku gaar marka ka dambe intaadan sawirkan iyo aanu gaarin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bil tababaraha baa waxaad ku aaday Kenya waxaad soo baratay artiga iyo kalaradiisa wuxuu kala taagan yahay theory badan saad ii sheegtay Muqdisho markaa kusoo noqotay waqti waxaa jiray aad naftaada break aad la qaadatay oo aad ku mashquulshay horta inaad intaada media tegin oo waxba soo bandhigin inaad naftaada aad waxa weeye challenge garayso maxay ahayd aragtida ka dambaysa arinta marka hore residency-gaas waxaa watay message la iidiyo bas laakiin aragtida ahayd inaad break qaato waxaa waaye kaliya message kale iisoo dhiibo ma ahane aniga message-kayga muxuu yahay aniga message-ka aan rabo inaan abuuro dadka rabo inaan u dhiibo maxaa waaye break 6 bilood qaate aqoontii waa aqaanaa inta residency-ga ku maqnaana waxaa jirta lacag transportation la siin jiro lacag adiga ku dhawaad $400 ahayd waxaa kusoo gatay qalabkii iyo wixii aan rabay inaan ku shaqeeyo magaalada kusoo laabtay Muqdisho 6 bilood break qaatay ande waxaa sameeyay marka waxaa dhacday in aan sameeyo self development waxa la dhahay inaa magacayga ka shaqeeyo inaan horumarsiyo inaan social media ka shaqeysiyo in dadka ama society-ga aan ku dhex jiro inaan bedelo waxaan dhahay 1 2 3 4 5 waa inaan sameeyaa become an artist become the biggest artist in the city become qof unique become qof la yaqaano oo muctarif ah and then waxa kamid ah marka waxyaabahaas adeegsaday inaan social media sameeyo inaan fikradaha soo gudbiyo in meeshaan muhiim waay in message-ka aawada uu gaaro dad kasto macnaha message-ka arti aawada inuu qofka gaaro marka ani muhiim ii ahayn
inaan follower badan helo iyo inaan like badan helo iyo inaan comment badan helo muhiimadda waxay ahayd inaan message-ka aan dadka gaarsiiyo ha waxaa dhacday marka I do keep consistent waa joogtay waa dadaal and then activity badan aan sameeyey waxyaabo badan oo cusub aan sameeyey magaalada arti waa la qabsatay studio aan sameeyey activity badan aan sameeyey oo la dhaho wax kamid ah paint and coffee night oo runtii magaalada aan dhihi karo dadka ugu badnaa magaalada si iskood intay isaga imaadaan wax u sawiraan uu ahaa macnaha markii ugu horeysa ka dambe anaa marka waxaa naqday art markii la dhaho qofku ugu horeeyay la arkadee lagu soo qof xasuusto maskaxdiisa kusoo dhacdo sababtana keenta waxa waaye saaxadii la haystaa kaliya maaha inaa aqoonteeda leeyahay waxyaabaha viralka ee dunida ka socdo waa la jaan qaado oo waa la jaan hayaa example hadda waxaa laga yaabaa artistayaasha Soomaaliyeed markay qabata dhahayd artistayaasha the biggest famous artist in the world ishaga marka dhahayd hal ilo inuu ku sheego laakiin aniga I know mostly of them iyo taariikh nololeedkooda waxyaabaha ay soo qabteen hal art xataa maani dhowr art oo kala duwan like transition inay sameeyeen oo ah inuu paint ka shaqeeyay sculpture inuu ka shaqeeyay mixed media inuu ka shaqeeyay painting ku isticmaalay inuu oil ahaa inuu acrylic ahaa waxaas oo dhan soo bartay marka taas waxay iga dhigtay marka inaan noqdo qof oo ka duwan artistayaasha kale oo like markii social media la raadiyo hada waxa jirta hashtag anaa leeyahay aan sameeyo dhahayo Somali art to the world farshaxanka Soomaaliya oo dunida u socdo dadka qaar cadaan qaar soo raadiyay dad ajaanib soo raadiyay dad Soomaali oo iyo inta meel u shaqeeyo soo raadiyay markay raadiyaan hadday soo raadiyaan baan helaan sababta yeelan waxa waaye because of social media waxa ku soo gelinaa waxay tahay waxay iyaga rabaan I know waxa iyaga rabaan macna marka waxaan aad ku shaqeynayso ama aad baranaysayna waxa u haysay jacayl badan taas ayaa keenaysa inaad barataba dadka waxaan dunida markii joogaana ku shaqeeya ama caanka ku ahaa absolutely haddii aadan jacaylka badan hayn maysan kuu fududaateen inaad shaqada badan qabato meeshaas oo jacaylka waxa rabaa qof kasta muuqaalkan daawana inuu ka ogaado oo ah hal mid oo Soomaalida aaminsan yahay jirto waxa waaye markii art la joogo fildiga art inay tahay qof kasta oo art inuu ku dhasho laakiin uu baran karin hibe ilaahay inuu bixiyo tahay macnaha hibada waxa waaye ilaahay qof kasta wuxuu siiyay hibe gaar ah ma aan qofka artistayaasha in la siiyo bas iyaga in hibe oo art la dhahay bas in iyaga bas la siiyo maahan qof kasta muuqaalkan daawanaya hibe gaar oo ilaahay siiyay hibada waxay noqon kartaa qaab labiskaaga waxay noqon kartaa qaab hadalkaaga waxay noqon kartaa inaad tahay qof howlkar ah oo jecel markasta inuu howl qabto waxay noqon kartaa inaad jeceshahay sida sawirada loo qaado waxay noqon kartaa inaad jeceshahay sida loo heeso waxa laga yaabaa inuu codka hibadaada inuu ilaahay codka ka geliyo waxa laga yaabaa hibadaada inuu ilaahay ka geliyo xisaabaadka xisaab bis inuu ku wanaagsanta macnaha marka hibadaada waa in aad adigu raadso hesho waa in aad raadso hesho waa saxantahay marka waxa waaye hibadaada waxa ku heli karta waxa waaye waxa isweydiisaa ma jirtaa wax aad jeceshahay qabashadiisa ama hooshiisa haddii aanan lacag ugu siinaynin xataa aad jeceshahay inaad qabatid macnaha oo aadan ka daalayn taasaa marka waxay tahay hibada taasaa waxay tahay hibada qofaa wuxuu ku leeyahay marka new artska meeqa ugu filan inaad barto anigu waa maskax fududahay ugu yaraan hal bil 2 bil baran karaa walaa dad badan ay dhahaan muhiimadda hal bil iyo 2 bil maahan muhiimadda inay maskaxdaada fududahay inay adag tahayna maahan muhiimadda waxaa waaye adiga waxaan jeceshahay there is a quote oo ani aan leeyahay oo dhahayo qof kasto artiska wuu baran karaa laakiin inaad artista noqotid waxay ku xiran tahay passionkaaga iyo jacaylka u haysto ani hadda qof kasta ii imaado waxaa jirto elements of art iyo principles waxa la dhaho waa qaacidooyinka qofka ku hagayo inuu artiga barto qaacidooyinkaas iyo qawaaciddaas markuu dhameeyo conceptiga artiga wuu haystaa laakiin wixii inuu ku dadaalo oo improve gareeyo skillkiisa oo style gooni ah la soo baxo oo artist isku arko inuu yahay waa shaqo kale ee la rabo dadaalkeeda juhdigeeda inuu qofka la imaado macnaha waqtina geliyo ha marka dadka intaas ma fahansano taasaana keentay dee in maaragtay aan xirfadeedii improve gareeyo kadib barashadii iyo waqtigaad gelisay improve garaysay maxay ahaayeen shaqooyinkii ugu waaweynaa oo aad qabatay
oo aad madaxaaga marna ka bixin oo dadkan xasuus gaara ku leh qaybna ka ahayd soo shaac bixidaada waxaa ka mid ahayd intaan taagelin wax ku darha qof kasto markuu rabo inuu meel sare gaaro talada ugu wanaagsan siina waxaa waaye shakhsiyadiisa inuu soo bandhigo isagoona lacag ku raadinayn lacagta waxaa ka muhiimsan magaca iyadaa keento lacagta iyo qofnimada marka qofka hadduu rabo inuu shakhsiyadiisii ama xirfadiisii ama talentigiisii ama aqoontiisii ama cilmigiisii ama businesskiisii banaanka usoo bixiyo waa advice ku socota macnaha all kind of people all kind of society waxaa waaye waxaan si lagu barto adoonan magac iyo lacag iyo dhaqaaliyo ku raadinayni waxaan horta dadku usoo bandhig because of adoon lagu aqoonin baa rabtaa inaan wax dadka ka gado mogtahay waa inaa wixii horta dadka ka gadaa waa inaa dadkii kalsoonidoodii kasbataa horta brand waa inaad dhisto ani marka waxyaabaha ugu waaweynaa ee ani inaan banaan kusoo baxo sabab u ahaa ama guulaha ugu waaweynaa gaaro waxaa ka mid ahaa inaan visionka mustaqbalka Soomaaliya aan ku cabiro farshaxankeyga iyo 6 bilood iga qaadato macnaha jecel u qabo waa li saawac marka 6 bilood waa li saawac waxay saawacay Cantoow waa mid ka mid ah dhalinyarta aad ku firfircoon oo Muqdisho ku nool maaragtay dawladda ku jiro siyaasadda ku jiro oo runtii adii karo waa dadka kaliya ee mudan in la bogaadiyo oo dhalinyarta soo kacaysa aad uga gacan qabta Cantoow inta ka salaama ويسوع حقول أنيو مدام nin dadaalaya tahay waxaa raba inaan jaanis ku abuuro madaxweynaha maadaama uu xilka hadda galay 15 miya soo dhaweey maxaa ku diyaarsanaysaa anna sawirka waa dhimiyay macnaha gabagabo ii aha waa diyaarsanaa fursadda waxay ku timid adoo diyaarsan anoo diyaarsan cajiib mid kale meeshan moogtaani waxyaabo badan soo tagtay waxa ku darsanaa ani ma dhan waa ku darsanaa labis waxa waaye ma jirto wax la dhahay nasiib waxa la dhaho ma jiro aniga nasiibka ma aaminsan nasiibka wuxuu yimaadaa ama waxa ka faa'iideysto shakhsiga u diyaarsan kadib diyaar garow weey nasiib example aniga ina meeshan fadhiyo nasiib u yeeshay laakiin nasiibkan kuma imaanin ina isoo wacdo oo reedo soo boodo shaqo soo qabata ku timid shaqo soo qabtana waxay ku timid magaca sameeyna waxay ku timid dadaalkii waqtigii juhdigii ani askili wax walba iska ma marka waa wax isku xirxiran marka qofka hadduu rabo inuu jaaniskiisa ama waqtigiisa ka faa'iideysto ama inuu nasiibka ka faa'iideysto hadduu rabo waa inuu isaga marka hore isku diyaariyo nasiibka qof isku diyaarsan un baa ka faa'iideysta marka wisawa waxay u dhaaniyo wax ku diyaarsan jira adii asxaab kale isku soo aadista noo imaada teamka isku soo aadistay waa imaanay hadana mindset kale meesha waxa ku jirta markaan imaanay dhalinyarta kale asxaabteedu way aamini weysay inaan madaxweynaha hore imaaneen macnaha marka u sheegtay waxa madaxweynaha la kulmeynaa wada surprise guys koolow 3 istiyaariya 15 May subaxda hore galinka hore oo dhan galinka hore waxa galayna madaxtooyada sawirada diyaarsada madaxweynaha sawirada soo bandhigana like ani meeshas waa iga feeling laayihiin because of waxa dad asxaabtu cycle dhex jiro in hal mar boodo meesha gaaro waxa ku imaatay in ninkan uu maalin habeenada ka mid ah barnaamij la sameeyay bandhig art isku aragnay meesha connection ku kala qaadanay sidii baan ninkii isku baranay connection kaas uu iga hayb ugu soo helay inuu maanta ku soo bandhigo iyo shaqadii uu arkay quruxda badan shaqooyinkii uu arkay marka asxaabtu aaminaysa asxaabtii isku soo xirxiray waa soo qaaday artigooda soo qaaday madaxtooyada soo galnay wixii baa soo bandhignay madaxweynaha marka sida dhaqanka ama dadka madaxda dhaqankooda waxa waaye 4 saac wixii ka dambeeyay imaadaan annagana subaxdii hore aan la geliyay macnaha meesha 12 shaaha soo cabna meesha kalne asxaabtu waxay leeyihiin kala buuqa galaysa warniyo meeshaan dad mi imaanay anaga deeysiin wala markii dambe madaxweynaha noo yimi qof kasta marka wuxuu qaaday waxa la dhahaa taraamo qaaday wuxuu filan lama filaan qof kasta hadalka ku adkaa inuu sheego macnaha waa bakadeen ma garanaa iska dhahayaa bakadid waxa qofku inuu soo wax lama filaana boqo kale marka dadka way saseen markaas waxa dhacday qof kasta hadalku sheego waa isdaba marinaa adsata amal marka waxa dhacday madaxweynaha markay aan hoosh dhamaysanay noo mahad celiyay sawirkii hadirtaan madaxweynuhu wuxuu yaalaa madaxtooyada mindset-ka kale meesha ku jira waxa waaye almost waa ku sheegay inaan career-kayga dhisay aqoontayda dhisay residence soo qaatay mindset-kayga bedelay
lacagta aan rabo inaan ku shaqeeyna mindsetkeed waa bedelay because of artistayaasha lacag basic ku shaqeeyaan almost lacag aad u yar ku shaqeeyaan maxay sababta keenaysa maxaa waaye dadkii magaalada joogaan fahansanin artistaha naftirkiisana kor iskuma qaadan isaga naftiisa shakhsiyadiisa waqti ma gelin waxa waqti ma gelin inuu macnaha adiga nafsadaada haddaa rabto inaad wax qaaliya ama lacag qaaliya ku shaqeyso Quality waa inaad la timaado. xirfadeeda iyo qualitygeeda la timaadaa macnaha aad iyo aad iyagana dee aqoontoodana ma dhisin fursadna ma u helin fursadna ma aqoonta abuuranin fursad u heshay lacagna badan ma sheegan karaan because of lacagtay sheeganayaan ku shaqeeyaan hadeertaan iyo waxay sameynayaan waa wax isleh marka waa inaan wax ka duwan iyo qofkana dee inuu wax cusub la imaado waa inuu research fiican sameeyaa marka tiimka ogeyn baa wax ku dhahay madaxweyne sharafeeno ta inaa farshaxanka soo bandhigno laakiin waxaa kasii jeclaa lahayn inaan ugu dhiirigelisaan maadaama dad dhalinyaro hadda soo baxaysana gabadha barticoolka hindaa la dhahaa intaa ka salaamaya hindu nugu xire waxay nugu tiri marka quotation isoo qor marka quotationka lacag baa u qora marka lacagta u qore lacagtii muddo kadib ay noo soo dhacday tiimka uma sheegin waxba ma oga tiimka markaasaa qofka soo calay hay iyo warsaata fiicanta ma sha Allah lacag bu soo gaartay meeqo 600 lacag bu soo gaartay meeqo 700 lacag bu soo gaartay meeqo 500 dadku yaabeen lacagta inta ka keen maalinka madaxweynaha hortageenaan ka soo qaadnay war macquul wax gart waa qaarkood waa 600 waxay la tahay wax weyn weligood basawir kuma qaadan baxata ha qof muqsujo hal mar asoo activity yar ka qayb galay inuu $600 wax weyn waa hal sawirna sawirayba ha wax weyn marka horena waxay ka go'aaneed in madaxweynaha la kulmaan oo like gift ahaan madaxweynaha ana inay arkaan baa wax weyn ba u ahayd inta saafa wax weyn noo eed mugtaa haddana inaan lacag ka soo qaadno waxay ahayd wax kale macno kale weyn ahayd marka dambe horta goolisha gaara ugu weyn taas ka mid ahayd goolisha kale gaara waxa ka mid ahayd in shirkii 2023 ka dhacayay heritage ka dhacay Djibouti in lagu casuumo forumka sawirka la isticmaalay wuxuu ahaa sawirkii aniga gacanteeda ku sameeyay bannerka totebags-yada meel kasta sawirka loo isticmaal keegu ahaa waana wuxuuna ka hadlayay nabad dib u heshiisiinta iyo nabad iyo ka hadlayay sawirka geedka miya sawirka geedka ahaa sawirka waa arkay waana jeclaysay laakiin cid sawir ma ogey sawirkaas waa arkay sharafan iyo ahayd wax kale ku dara hadana meeshaas wax kaga faa'iideysto wuxuu ahaa sawirka madaxweynaha Djibouti ayaan soo diyaarsaday cidna ma darinta yani casuumad un baa ku jooga meesha adaa diyaarsanaa live painting ahaan baa usmeynay artistayaasha Soomaaliyeedna dee badankood ma jirin ba wax live painting ma jirin waxa weeye inay intay soo sawiraan waqti badan ka qaadatay keenaan ani marka live painting waxa ka mid ahaa waxyaabaha aan nafsadeeda ku challenge gareynay inaan la qabsado macnaha inaan ku celceliyo xafladda dhexdeeda inaad bilowdo ku dhamayso dadka meesha jooga waa imaadeen waa yaabeen waxay u dhaheen war heede madaxweynaha sawiraysa wacda la hadaad meel yar hadaa khalado dhulka aad joogto waxba ka sheegi ka dhaa laakiin aabaheena meel yar hadaa khalado xabsi xaajadu adkaat anna dee waa aaminsanaa inaa waxaan samayn kara moogtaa waskala kaftamaa marka kadib sidii baan baashi ku dhameeyey goolisha kaloo gaaro waxa ma la kulantay markaa madaxweynihii markaa wasiiradii Allah naxariistay wasiiradii geeriyootay shirkii meesha lagu xiray laakiin xaflad dadku say u soo dhaweeyeen sawirkaas ay u arkeen wallahi wuxuu ahaa isleeyahay moogtaa meel kasta wax lagu sameeyo oo leeyo casuum artiga wuxuu noqdaa kan ugu saameynta badan mostly sababtoo waa wax live u socdo oo qofka la falgalayo haddana uusan ogaan karin natiijada ka imaan karto absolutely hadda xataa markii ugu horeysay anagu intaada magaalada markaa imaanaysa soo socotay social media aan adiga wada hadalnay laakiin marka ugu horeysay aan magaalada ku arkay waxa uu imid adoo live soo wareeyay dani madaxweyne dani xisaabtana iguma jirin inaan live ku sawiro maadaama madaxweynihi imaanayo waxa uu arkay inaan Janice ay tahay inaan isku gadi karo fiiri waxa kaliya u ordaayo ama aan u socdo waxa waaye shakhsiyadeedii in la ii arko ina ahay qof jiro dadka laga dhac aqoonsado marka sawiradan aad sameeynayso waxaan aad diyaarinayso waa naftaadii wax ka turjumayo sawirkii naftaada adun baa naftaadii waa 4C maxaa ku asteynay marka la dhaho waa in la dhaho aragtiyihiisa qalbiga ku jiro soo bandhigayo hadda su'aal baa ku weydiinaa marka lagu dhaho isgaarsiin yaa kugu soo dhacay marka halakan la joogo golis sababta koonfur marka la joogo hormuud okay sababta ay golis kugu soo dhacday maxaa
waxaan dhihi karaa isgaarsiimo kale iskaaminka hore way ka horeysay ha waqti badanna way shaqeynaysa samahan ani marka waxa ka shaqeynayay ama hadda ka shaqeynaa waxa waay marka art la dhaho qofku wareey maskaxda ku soo dhacayna ani noqdo absolutely عشان waxa weeye golis jiritaanka iyo horay inay waqti badan u soo baxday bay madaxeeda kugu soo dhacaysaa laakiin adduunku qofku wuxuu madaxiisa aad ku qabsan ka dhaawo inaad shaqo badan qabato marketing badan sameeyso oo sameeyo qofku hal abuur tira badan marka wax walba marka fiilka marka qofku soo xasuusto waa inaad xasuusato qofka ugu fiican absolutely marka hadda aad in lagu soo xasuusto markaad fiilka ku jidho waxa weeye shaqada qabatay absolutely marka taasaa guuleey ka mid ahayd guuleey kale ugu waaweynaa gaar waxa ka mid ahaa 2024 ay ku guuleysto best artist of the year niyo horta si guud wacyiga Soomaaliya markii farshaxan la dhaho kuma baraarugsana hooseeya fan markii la dhaho kaliya ma aan heeso absolutely iyo dhaqan iyo music iyo gabay iyo suugaan ma ahan fan markii la dhaho ama suugaan ereyga waa suugaan ama art oo dhan ba art waa ugu xoog badan ba it's different kind waa qayb kala duwan waay farshaxankana waa qayb ka mid ah fanka dhaqankeena Soomaaliya ama asal ahaan ama gadaal marka loo fiiriyo Soomaalida waxa kaliya hadda social media la isticmaalaa telefoon la isticmaalaa Facebook la isticmaalaa like platformyo badan la isticmaalaa laakiin Soomaalida waxa kaliya ee waaga hore gabar lagu kala doonan jiray loo garfariisan jiray lagu garnaqsan jiray lagu geeraari jiray lagu hadli jiray message lagu gudbin jiray dagaal lagu gali jiray lagu kala xal qaadan jiray waxay ahayd suugaanta qaybteeda maartay gabayga ama geeraarka ama maansada ama tixda guud ahaan suugaanta qaybta suugaanta like artiga backgroundka Soomaaliya marka dib u fiirisid xitaa 60kii ka dambe marka dib u fiirisid waxa jira artiste Ruushiyaan iyo artiste Talyaani oo project sida hadda ani aan guriga ku joogo oo kale loo keeni jiray Soomaaliya xilliyada munaasabadaha la shaqeyn jiray dawladda oo sawir ka qaadan jiray dadka Soomaalida oo farshaxan sameyn jiray oo darbiyada ku sawiri jiray oo munaasabadaha waaweyn ee Soomaaliya ee leedahay oo kale farshaxan sameyn jiray waa garta kuwaas marka se wax u sameyn jireen ayaa artistayaasha kale Soomaalida meesha marka joogtay inta ku garaadlayaasha ee inta wax ka baran jiray ayaa ka guuray indhiga ka bartay wixii ana aad wahaya noteski ku jira hadii la raadiyo waa la hela commission ahaan jirin macnaha sanad la loo keeni jiray marka artistayaasha Soomaaliya indhiga ka bartay dadkii lama baahanin kuwii kalena kuwii bartayna kuwii ka dambeeyay Amin Caamir iyo artistayaasha marka jooga ka si bartay shig iyo wixii ahay marka dad oo indha ku garaadlayaan self taught of English wax lagu dhaho iyaga inay indhaha ka qabsadaan indhiga ka barteen laakiin theory ahaan uma hayaan practical ahaan bay u hayaan macnaha ka dambe haddana sidii bay wax ku soo gaartay wal isku soo dhidhiibay ani sidaa bay igu soo gaartay macnaha sidii la isku soo dhidhiibay bay igu soo gaartaana absolutely ma jirin marka artiste academic Amin Caamir soo warbixintiisa ku bixiyay markii la arkay in waxa ninka odayga Amin Caamir dhulku wuxuu wax ku sawiray dad Ruushiyaan takaxayna scholarship Ruushka la siiyay 4 sano ama 3 sano miyaa soo qaato kadibna sidii ku soo develop garay laakiin markaas isagu waxa uu sawiri jiray macnaha self taught ah anaga marka sidii inta lagu soo gaartay waxa dhacday marka in la waayo meel sax ah ee artiga laga barto macnaha inta hagaada gelin waxaan rabaa arrin baan ku bidhaaminayaa suugaanta iyo gabayadu iyo fanka iyo heesaha iyo markay noqoto sawirada waxa cimri dheer sawirada absolutely waxa la dhahaa thousands of words kun eray waxa ka message badan hal sawir waxa kale oo arinta marka laga yaabo caadiyanba xilligan la joogo waxa kaliya dunida ugu taariikhda dheer oo la hayo waa sawirada darbiyada iyo ku sawiran meelaha qadiimiga absolutely hadda Soomaaliya kala ka soo qaadana buurahan Puntland sanaa qayb kamid ah Laasgeel oo Soomaaliland waxa ku sawiran sawiro farshaxana oo markii waqtigooda la qiyaasay yihiin ku dhawaad 2,000 sano ka hor taariikhda kaliya oo hadda Soomaalidu inay yihiin dad aad u farac weyn waxa kaliya raadka laga hayo waxa weeye darbiyada farshaxanka ku sawiran Masar
Absolutely. iyo ciyaaraha dadkaas ay ciyaarayaan iyo ciyaaraha Soomaaliya laga ciyaaro inay same yihiin waxa kaliya lagu cadeyn karo waa artiga la hayo mana yaqaan faraacintu ciyaaraha ciyaari jireen lagama ciyaaro Masar in marka dadkan halakan ka yimaadeen oo Puntland ama Punt waxa la isku yiraahdo Soomaaliya oo dhan ka yimaadeen waxa kaliya oo xaqiiqda loogu hayo waa sawirada ma la hayo gabay ma la hayo heeso gabayada ugu badan waxa la hayo waa 100 sano ugu dambeeyay ama 200 sano ugu dambeeyay laakiin sawiradu waa 3000 4000 10000 oo sano ka hor marka dad badan kuma baraarugsana arrinta laakiin haddii ku baraarugu lahaayeen waxa weeye even hadda mararka qaar kood Soomaaliya khariirad ahaan ama buugaagta taariikhda markii qofku safrayo kale Ibn Battuta Saciid al-Muqdish dadkaas oo markay safrayaan buugaagtooda kaliya waxa lagu hayaa waxa weeye meelaha mareen inay sawir gacmeedyo ku diri jireen sida meelaha u ekaayeen markay qaybtood waxa kaliya 100 sano ka 200 sano ka waxa laga yaabaa maab gacanta lagu sawiray waxa kaliya harayana waa sawirka marka wuu ka cimri dheer yahay waxyaalahan kale oo fanka oo dhan marka waana sababta ku dhahayo Soomaaliyeena lama ba haystaan wacyiga artiga because of saameyn gadaale kuma lahayn macnaha adii sidii bay anaga nagu soo gaartay sidii isku dhiibay artiga siyaabo badan oo qofka dadka artiga ku aaminsan waa jira oo diin ahaan dhahay waxaan artiga waa dambi qofka haduu rabo inuu barto xataa artiga kaliya baahan xataa sawirada caadiga kaamirada bariga hore dambi way la dhijir haddana waa la galaa marka siyaabo badan qofku waxa jirta uu ku dhiirinayeen inuu fildiga xataa isku dayo inuu wax ka fahmo absolutely guulaha agaari waxa kamid ahayd marka in studio ugu horeeyay si live ee Muqdisho laga sameeyo oo la imaan karo la soo daawan karo sawir ku dhagan yihiin oo farshaxan lagu sameeyo ina sameeyay waxa kale guul kale oo arkaa ahayd in community art sameeyo oo barnaamij live paint and coffee night oo markii labaad sameeyay oo aniga iskiga cidna waxba ii dirsan aan sameeyay si u abaabulo wacyiga ama saasaro u qaado wacyiga artiga waxa kale kamid ahayd waqtigan hadda la joogo Muqdishada arkaysid inay jiraan darbiyo raxmarka ama Muqdisho ama dadka aniga aan matalo meelo ina u sameeyay meelo iyaga farxadooda ka shaqeynaysa macnaha laakiin inuu isu labistaan sawir ku soo galaan maaragtay dhismayaasha qadiimiga ah laga tagay jajabo oo kale inta tago farshaxan ku soo sameeyo dad YouTubertan muuqaale hees ku soo duwaan fanaaniinta waaweynaa isma IB oo kale wadanka si markuu yimi farshaxan ku soo dhaweeyo gabadhii Ramle Cali oo kale farshaxan u sameeyo fanaanka weynaa Keenan farshaxan u sameeyo kulli waa la kulanta marka maya Keenan iyo Ramle lama kulmin laakiin sawira u sameeyay marka waxyaabahaas oo aniga waa qayb kamid ah guulihii waxa kale guulihii kamid ahaa in xarun military sawirka haram caad la dhaho guud ahaan aad muuqeediyo badash like ani waxa aaminsanaa sa u noqdo qof unique waa inaan ka shaqeeyaa wax aanu dadka hore indhooda u qabanin ama maskaxdoodii hore aanu ku soo dhicin maskaxdoodana ku hadha aniga koobkan halkan laga qabsado Soomaan haddii maskaxdeeda ii sheegto in inta laga qabsado ay macquul tahay sustainable noqon karto waa ka shaqeynaa dadkana waa bara muhiimadu waa dadka in la baro way la qabsanayaan dambe way la qabsanayaan taas oo caadi laga yaabo maalmihii hore inaan comment ka keen laakiin ugu dambeyn way la qabsanayaan markii hore ma jirin koob in dhigta la qabsado ma jirin marka waxa jirto erey ama siyaasad aniga isticmaalo haddii maskaxdaada ay wax ku soo dhacaan sabab ay jirto maskaxdaada soo gashay hadii hadda noqo madaxweynaha Afrika noqo bas madaxweynaha Soomaaliya noqo ma ku soo dhici kartid maskaxdaada because of level kaasna kuma jirtid stage kaas ma haysid wadadaas ma haysid sabab ku noqon kartid ma jirto laakiin sababta Ilaahay maskaxdaada uu ayri ku soo geliyo waxa waaye that means wadadeedii baa haysaa laakiin inaad samaysid waxa laga yaabaa in caqabad yar kaaga soo kulanto imagination kaaga marka in open ka dhigto ani marka wax kasto imagination ku soo dhaco waa sameeyaa xad male artigu حتى هذا العقد بدن يجيبها أنت ضد بالك هشتا نيجي سميعها because of وحى من سنة وحس إني أنا يجي جاين level up مركب قولي وسكا بدين هين واحد سوق وكرماهن
kuley anuu nin guulaha xisaabsada mihi laakiin keliya waxa ahay inay u muuqato in maalin un okay maalin un markaa ku dhahay waxa waaye qofka Soomaaliya wuxuu ku leeyahay war saaxiib aartii aad samaynaysid wadankan aad joogtid wax macna kama sameeyo haddaa Yurub iimaalaha tayle wallahi lacag badan baa laga siinaa intaasoo malaayiin baa laga siisana intaasoo malaayiin anigu ma gaaray adoo maxaa iga siin kartaa adoo waxa iga siin kartaa ii sheeg hadda anaga isla joogna ay qofka xataa $20 inuu aart ka bixiyo uma quuro marka Soomaaliya joogo laakiin aniga Soomaaliya ma u socdo aniga fikirkeyga iyo ideyaheyga ama mindsetkeyga Soomaaliya uu ka weyn marka hore xaafada ka soo bilaabay gobol ahayd caasimada ahayd gobol ay gaartay gobolkii bay ka tagtay Soomaaliya hadda mare Soomaaliya aniga gobol aad tagmay koobantay macnaha oo leeyagu yar in aart ka sameeyo laakiin marka fahmay inaan leeyahay awood ka baxsan gobolada iyo Soomaaliya ka baxsan waxa bilaabay inaan international wax la qabsan ani marka meesha u socdo waxa waa inaan maalin un farshaxankeygii intaas oo $1 lagu gato macnaha anoo wadankeyga joogo anoo taariibin anoo meel kale aadin maartay inaan wadanka inaan like dunida inaan iska gado su'aashan rayno ku weydiiyo waxa weeye marka caqabadahaas oo kale iyo dadkaas hadalladaas oo kale ku dhaxaan marna ma kugu soo dhacdaa inaad aado wadamada fursaduhu ay aad u tira badan yihiin oo Soomaaliya ay adag tahay inaad horumar badan ka samayso marna madaxaada ma ku soo dhacdo ha maxaad marka kula dagaalantaa madaxaada oo wili dad badan aad waxa la aaminsan yahay inay fudud tahay qofku inuu tahriibo xilliyada hore way adkayd ama uu dhoofo maxaa marka wadanka haddii madaxaada ku soo dhacday kugu dhiirigeliyo inaad wili sii joogto ani wadanka inaan ka tago maskaxdeeda wax oo hadda iyo sanadka hore ku soo dhacmeen maar hore ku soo dhacay laakiin noloshii iyo perspective-ka aan ka qabo marka hore wuxuu ahaa waxa ah qof iska normal ah message-kii hore artistaashka hore usoo dhiiban usoo haysta wax aragti kale ku darin wax kale perspective kale lahayn dunida caalamka artiska waxba ka ogeyn intaas ku koobnaa macnaha laakiin marka residency qaato maskaxda isbedeshay aragtida isbedeshay qaabka u shaqeynay jadwalka u shaqeynay bedelay dadka aan la shaqeysanay naftarkooda bedelay dadka u shaqeynay bedelay cycle-keyga bedelay waqtiga inta ugu badnaa aan dhahay waa inuu art noqdaa aniga hadda dadka magaalada Muqdisho joogan waa inay arkaan anoo shaqo ku jiro meel ka shaqeynaa ama waa inaysan arkinba macnaha arkin markaan ku dhaawaa inaan studio ku jiro oo shaqaha bas dadka markay studio soo boqdaan way yaabaan xalaniyo goorma kula sheekeysana Janice ma weysid sagaashan waxa la sawirtaa ama waajiftaa ama meel ka shaqeynaa bas wadanka horta waa wadankeyga waa u dhashay waana ku dhimanaa qadiyada wadankeyga ugu weynti laakiin at the same time waxa jira waxa waaye ma awoodi kartid because of shaabad waxa ku dhigan wadankeyga wadan xun maaha laakiin waa lagu dhijiyay shaabada in wadankeyga wadan xun yahay shaabadaas waa lagu dhijiyay waxa hadda ka shaqeynayo artigeyga iyo meesha aan u fadhiyo oo u dagaalamayo waxa waaye message-ka wadankeyga hadda garowa aan joogo darbigaas dheer aragtay ee nabadda iyo adduunyada saa ku sawirna arkaysid waxa waaye inaan bedelo shaabada wadankeyga inuu yahay wadan argagaxso ku nool wadan saan tahay wadan amni lahayn wadan kan lahayn waxyaabo aan ka shaqeynaa waxa waaye inaan aragtidaas bedelo ani marka wadankeyga sabaha ugu tahay waxay ahayd shaabada marka hore ku dhigneed aragti badan ma ka haysanin aniga sideedii inaan kaalin ka qaadan karo inaan wadankii aragtidooda bedel aragtida dadka banaanka ka qaban bedelin saas inaan sameeyo like aniga way ugu yarayd inaan rumeeyo taas laakiin aragtida way isbedeshay waxyaabaha igu dhiirigeliyeen waxay ahayd waxa waaye hadda inaan wadanka sii joogo ama wadanka inaan kasii shaqeeyo waxa waaye waxaa jira dad kooban oo luqadda artiga aan ku hadlayo fahamsan mar kasta igu support gareeyo inaan meesheeda kasii wado inaan level up sameeyo iyo anigii oo ku dadaalay waxaan inaan sii horumariyo macnaha iyo wadankii laftarkiisa soo kabanayo fursado badan ka jiraan wallahi been kuma sheegay saaxib artiga marka soo galay aan inaan ka shaqeeyo bilaabay meel kastoo hadirtan aniga connection ku leeyahay 80% aniga ku bilaabay inaan isbaro
markii ay isbareen waxay naqatay inay iga maarmi waayaan macnaha waxaan tusay inay ii baahan yihiin aanu adeegsanay RTA hadda dawladda ha dhihin jaamacad ha dhihin event ha dhihin forum ha dhihin hadduusan art ku jirin forumka ama event dhadhan ma laha annagana sidoo kale qayb waxaa jirta halakan garawe artigu ku yaraa waxaa jira tiim aad u ammaanay wuuziya la yiraahdo oo xalayna qayb ka lahaa programka joogay oo layla xiisay ka mid tahay in xafladaha qaybtood lagu soo daro marka hadda waxay noqotay common in ay qayb ka noqdaan program kasta la qabanayo waxayna muuqatay isbedel weyn oo dhanka farshaxanka in laamigan hadda aad sawirka weyn ku sawireen qof walba uu yimaado ama Soomaali wuxuu dareemayaa magaalada inay tahay magaalo nabadeed artigu wuxuu ka turjumaa inuu sa aaminsanahay meeshan inay ka jiraan xadaarad ilbaxnimo nabad qof artista in ayadoo xabadi dhacayso madaxiisu ma ku fakarey inuu waxaas qoro ama ka sheekeeyo wallahi marka waxa keenaya nabadda Ilaahay noo siyaadiyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo anagoo su'aalihii hore ka jawaabayno ahaa aqoontii inaad heshay inaad fursadihii oo dadkii badhay marka dadkii inta baraysay waxa qabatay programkii koowaad oo kafeegii oo dadku ku baraysay programadaas noocee ay ku bilowdeen maxaa kugu dhiirigeliyay mid baa ka taageeray ayaga ka war barnaamijku waxa ugu dhiirigeliyay wuxuu ahaa inaan maadaama rabo inaan saaxadda artiga fanka artiga aan naqdo dadka hogaaminaa inaan community abuuro community sabab ku abuur karna waxa kamid ah paint and coffee night oo runtii qarash iyo maskax iyo juhdi iyo waqti iyo dadaal iga galay oo runtiina ku guuleystay sanadkiisa hore sanadkii labaadna barnaamij aan safaaradda Turkiga la qabanayay ayaa wuxuu ahaa 15 May maalinka dhalinyarada xuska ama maalinka ciida dhalinyarada Turkida 19 May iyo waxa la isku qabanayay 15 May labadii marka hal event loo sameeyay yar ayaan leedahay inta ka salaamaya aan barnaamijkii opportunity iyo abuure and then markasta way wanaagsan tahay meel kasta tagtid inaad ka dhex muuqatid sabab kasta u dhex muuqan kartidna inaad ka shaqeysid meesha marka aad noqon qof iska normal qof iska caadi ah noqon yimid shaqadii loo diray qabtay iska baxay wax raad aan lahayn ani ma rabi qof caadi inaan noqdo waxa raba qof markii la arko ama markii barnaamij la qabanayo laga sheekeeyo la dhaho ninkaas waa ma sha Allah mar walbana la soo xasuusto because of branding design personal branding design marka waxa jirta barnaamijkii wali waczuumay marka anoo sii baxay waxa arkay Mustafa Kamal Ataturk يعني waxa ku dhahay kan uu ana ma garanaa daacadayga wuxuu leeyahay ninka Turkida dawlad naqatay inuu dawlad naqato ka dambeeyay asaasi marka way aaminsan ka war hadda soo sameeyay war macquul ma sameeyay maalinka xafladda barnaamijkii ugu talagalay oo artiga waa guide garay waa dhameeyay sawirkii aan damacayna ku doonsiyo waxa la dhahay sawirka meel fiican baa ka soo baxday sawirkan ra'iisul wasaaraha wuxuu ku doonsiinaa safiirka soo aragtay fikradda sharafay taa dhahan sawir ani sameeyay in ra'iisul wasaaraha dalka inuu ku doonsiyo safiirka macluumaad ay sameeyeen markii la guddoonsiina waxa lagu dhahay RTC sameey waa ka hal soo waxa la dhahay soo waxa saxada soo korno wasla qaban marka ani shakhsiyad Mustafa Kamal Ataturk waxa iga ma gelin laakiin waxa ahayd muhiimadda ina dadka aan la shaqeynay kaalinteedii iyo dadka aan la shaqeey inaan baro inuu jiro qof la dhaho artist qof la dhaho force oo artist oo Soomaaliya u matali kara dunida kii labaad marka safaaradda Turkiga waxaanu safiirka wuxuu yiri iimaw safiirka u tagay safiirku wasaaradda safiirka xogeenka marka awiisa waxa artist weyn oo wixii fahansan wuxuu dhaniyo maxaa ka caawin karnaa markaas waxa ku dhaniyo barnaamij weyn sameeynaya barnaamijka saaraba in maaragtay aad igala shaqeyso isaga safaaradda marka collaboration la sameeyay kii labaad iyada iga caawinayso oo runtii aan dhihi karo barnaamijyada sameeyay waa kan ugu weyn aan ku guuleysto alxamdulillah si fiican ugu qabso Muqdisho ku qabtay بالموند ميل أنا بنادر كتلا وقبته سقوط بينه وقبسنته
halkaas marka waxaa iga ziyaaday sharaf iyo magac iyo ciiso iyo in dadkii ay sii fahmaan hadda sometimes waxaa arkaysaa gabdho qaar is abaabulaya dad rag qaar is abaabulaya barnaamijyo qaar waxaa la sameynaa anoona lii baahnayn in si gooni loo samaysto macnaha taas ani macno weyn ii sameynay dadka waxaa badhay because of tosha ifi because of community abuure because of artiga dadka soo dhexgeliyay because of enjoyment abuure saalo waxa ku caawa magaalada waxa ka jira casho iyo arti oo dhalinyaro abaabuleen marka waxa weeye baraarug fiican oo dhalinyaradu halkay ku mashquuli lahaayeen waxyaalo naftooda dhib ku ah inay tahriibaan inay sameystaan farxad iyo gaar u ah runtii lagu amaanayo maxay ahayd dadkii xafladda ka soo qayb galay wixii feedback kala kulantay aragtidooda iyo waxay ka bedeshay maadaama ay ahayd adu message-ka dadka inay wax ka bedesho masha Allah xafladda waxaa imaaday dayaxdal nuur saa imaaday oo runtii saxaab isku dhownahay waxaa kaloo imaaday gudoomiyaha dhalinyarada qaranka Soomaaliya champion halkan ka salaamayo waxaa kaloo imaaday gudoomiyaha degmada Hodan maaragtay waxaa kaloo habeenkaas noo imaaday aadan faarax afiyo abdu cali dadku u yaqaanaan artistiyaal imaadeen oo isku level ama isku load aan nahay runtii qaaciya jiray barnaamijyo badan jiray wuxuu ahaa the most brilliant event oo sameeyo xitaa ma aamini ilbaabka dadka lagu celiyay aqliga diida حتى واحد جري دد بدن أو هبين كجانس هبينكي دد بدن بعدر أنت أصلا سمستين أو يونيك جانس بجري جانس هواي أو تيك توك إسكسر دور لايك أنيجا هبين كجانس أو هلواي لكن هبين كواحد سمين واي هذا ران سمينا كذا إن عجيب كورن مركب هذا سميسين مركب الله بعد محيو كل دواناي ده مثلك سوق لقيب قليل مركب كواد حوا مركب ورث اللي سميه ده كان آدم مفهوم سنين أنا وحى أقول تلقى لسوا حماسة وياشو سنة كيو مر إنا سميه مركب كواد أن سميه تدكو يسود وين أركتدي مركب كواد وحى بحدي إنه قف كست وحسبير كريم قف كست وحى إنه تالنتي إلهي وكسي إنه يهاي معنا أركتدي أسمع كان تنكواد سميه وين بحد معنا بحس كل بدي شيء إنه قف كست يسكت ضيكر إنه وحسمه أنا دت كلمت كمان دقين وحى كده وإنا قف كستبو وإنه سويرا وحلا سيلف بورتريت ماشي أمريكا ماشي وحى قعد إنه قفك إس أقون صدق قفك يا شخصية ديسة ما دام التين إيج بدن كود إنه قفك إس أقون صدق أديك وحى إسكو قيحيش أديك وحى سيسكو عرفته ها سيسكو عرفته ما أنت أديك أو كورنيل ما أنا فوسية maxaa nafsadaada hal shay ku metel waxa ku meteli kartaa like biyo bedel kartaa ama coffee oo like marka caajis to kale marka coffee caajiskina ina like meesha imaadid ina dadka caajiska ka qaadiyo dayaxo kale ina iftiinta ina shumacta ina fiyoora tahay ina holac tahay ina lagu taaban karin marka dadka marka anina limit kama dhigin like waxaan dhahay self portrait waxa la imagination kiina waxa naftiina ka aaminsantiin sawira waxaana dadka ay ku dhiirideen inay sameeyaan iyagoo access u heli kara wax aniga aan access u heli karin xilliga hore oo ahaa ina agab heli karin ina waxba heli karin inta sometimes waxa dhacdo agabka farshaxanka ana gacantayda ku sameeyay ana sameeyay macnaha ana caad u sameeyay oo wax lagu sawiray canvas ka laakiin rinjiga marna banaanka ka keenaa marna xayaat ama magaalada la keenaa sameeyay qalabka فريميدا وكل الوحيدة هذا قاعد تقسمه يدخل دياري وكنتا sometimes حياة أركيسها وحوسها يعني كان فسيلة مركب واحد بدل لقصة ضرب أما سايس ليميت أي حيان سايس كوي مركب لقصة ضرب أنا عاد وسميه بروجكت يعني سيسا حياة وحي أركتها أنا هاي شخصي واحد هوجي يتوقع بيحكر معنا كم بيني سوق يا أبور معنا كثير سوق نوا أبور تذكر ما يجد كود نحوا كبدلي مقالة نحوا كسوق جانس نوا أبور أركتيش وأبور لعكت وحوا كبدلي مال كستا أو أرسكو قال كرين واجلي معك ويدينيا أنت أصلاً أضو أبوري هذا سيديك ولا موقتها أرتسكا صومالية برنامج كان أنا واحد قلت لك علي تذكر على أرتسك أنا شخصية هذا وحكي برتان لأن يرى بدن وحجرة تينيجريسا أما لأن يرى واوين أو تعلينا برتان فرصة هيلين لقيا بين أمريكا برتان واين رفض بدنا أوصل مدري أحلى بايونير قفكا وحصب وضع عصب فشا هيسن ميل قف هجا
haysan garab runtii maalmo badan iyo waqti badan ay ku qaadato laakiin dadkii aad caawisay oo qalabka u keentay oo imaada oo wax sawir ah ku tiri waxba la baro macna dadkaas waxa la barnaamijka paint and coffee alla coffee leedahay shaah leedahay snacks leedahay qofkii buuqba ma jiro adna waad soo rafaaday musicna waa jiraa yar oo gaaban haya absolutely dad waxaa jira ayaguna aan laga yaabo inay deegaano kala joogaan haysanin jawiga maxay tahay dadkaas horta dee fariin weyn bay u tahay qof adigoo kala nolosha ku koray Soomaaliya jooga inay wax ka bartaan wadada madhayo kala maraan aysan isdhiibin jacaylkooda iyo habigooda ay waqti geliyaan maxay tahay fariinta u dirayso qofkaas oo kala jecel laga yaabo caqabadihii ku haysto kale inay haystaan aqoon la'aantii artiga aad u lahayn fursadihii aan haysan garabka hesho kale aan helin maxay tahay message-ka u dirayso oo aad leedahay naftaada oo kale ka soo qaaday xilliga 12 sano ka hor meesha joogtay dadka jooga wax walba horta shakhsiga asaga ka bilaabaan rabitaankiisa ama doonistiisa waxay gaarsiisaa meesha rabo inuu gaaro iyo inuu ka haro iyo percentage-ka baahida uu qabo waxa inuu gaaro ana horta koorsooyin soo wada online iyo buugaag farshaxan laga barto iyo si guud barnaamij waaweyn oo ugu talagalay inaan Soomaaliya ku xoojiyo dhawaan waxaan rajeynaa maaragtay artiga Soomaaliya inuu noqdo activity-da Soomaaliya ka socda dhan kan uu saameynta badan qof walba waxa leeyahay waqtigan hadda la joogo macalinka ugu wanaagsan heli kartid waa YouTube waa internet in qof baa wuxuu jecel yahay inuu sawiro weji bis qofna wuxuu jecel yahay inuu sawiro landscape qof wuxuu jecel yahay inuu sawiro waxyaabaha crafts-ka warqadaha iyo lagu sameeyo marka adiga style-ka ama nooca aad rabtid horta marka hore saa u ogaatid waa inaa horta YouTube-ka gashaa wax baa raadisaa noocyadiisu kala baxo wax baa raadisaa kadibna style-ka aad rabtid ka qaado kadibna bilow ani marka qof kastoo marka muuqaalka daawanayo artist rabo inuu barto waxa rabo inuu u sheego waxaa jirta waxa la creative block ama creative stack marka art kaliman field kasta ku dhex jirta waxa waaye shaqada rabta inaad qabatid mana qaban kartid wixii baa u baahan tahay inaad sameysid haddana ma sameyn kartid like energy dadaalkii waxa laga yaabaa inaad dhahayd okay maanta shaqo qabanaysaa waa soo baxee maqaayadaha gale salaada iska bixine dharka iska bedel wixii adoo diyaar weey hadda markaa soo fadhiisid telefoon ama waxyaabo kale laga yaabaa inaad qabsid laakiin wixii baa rabtaa laakiin ma qabanaysid ama shaqadii adoo wadid hal mar istaagi meelaha ka bilowday garanmaysid meelaha ka maartay aad ka sii wadid ma garanaysid waxa sameynay markaas oo kale creative block wax caam ah marka waxa la sameeyaa mustali hadaa adoo wax sawira wixii kula fool xumaadaan anigu igu dhacdaa hadaa adoo wax sawira wixii ay meesha ka bilaawday ama madax ugu xanuun iska dhig any kind of shaqays iska dhig break qaado iska bax break qaado coffee iska doono waxa keenay waxa waaye waxaas markaas focus ku noqotay focus marka ku noqotayna waxa details ka soo taabani details marka soo taabatidna details wax ka dambeeya raadina marka wax ka dambeeyna ma jiro waa details ka soo meesha ku dhamaanayso waa details ka shaqada details ka wax ka dambeeya raadinaysid ma jiro waadi adaa maskaxda iska waa marka break iska qaadani magaalada iska soo galay marka soo noqotid wada ku baxaysa marka because of wixii marka dhax gasho oo raadiso waa ku wareeri laakiin marka lagu dhaho example marka lagu dhaho qol weyn ama magaalo marka lagu dhaho ka soo dhax raadi hal shay waa ku wareer laakiin marka lagu dhaho magaaladaas xaafad hebel guri hebel qol hebel dhinac hebel waxa saaran yihiin almost guide haysta marka ina break soo qaato waxa ka caawinay ina wixii meesha focus-ka gelineed inay ku muuqato iyo in wajinayso anaga way nagu dhacdaa hadda markaan muuqaalada edit gareynano kale halka muuqaal baa laga yaabaa in inta hagaajiso haddana kula qurux badnaan waayo even waxa ugu adag anaga markaan wax edit gareynano marka laga hadlayo muuqaalada hal abuurka ina bilowga hore ku kici waayo kibriidka waxa la dhahaa gabayga iyo waxba kiciya ma ogta intro ugu horeeya iyo style-ka sheekada aragtina u bilowdo waa waaye marka qaarkood waxa markaa sameeyna anaga muuqaalka inta hadalada kala iska jarjaranay biirolada jarjaranay waa ka tagay music fiican raadinaya music ba waaye waxa ugu muhiimsan music waa marka music iyo waxay aragtay marka isku la jaan qaadaan waxa u baahanta marka qaarkood inaaba ka tagtay muuqaalkan oo dhowr maalmood ka bacdi laga inuu ku kaco
marka waa wax farshaxanka la xiriiro oo dhan ba u baahan in qofku uu break marka creative industry wax ku jiro dhan marka qof kasto farshaxanku darisa quote oo ana leeyahay qof kasta farshaxanku u baran karaa laakiin uu farshaxanista noqdo asay ku xirantahay that means aniga jaamacad art kama soo bixin wadankuna ma bale ma wala ha marka aniga dad laakiin waxa jiro soo minter gareey saama saamay dhahay iyaga inay tay kaxeeyeen school u fadhiistay wax bareen maaha iska badaayay waxa iyaga ay bareen waxa ka badan inta aniga iyaga ka raadsaday ama dad kale ay ka raadsaday macnaha because of macalinku wuxuu ku baraa inta isaga uu garanay laakiin adiga waxa baranay inta isaga uu garanay in qof kale uu garanay in adiga cusub ka timi oo adiga ka imaanaysa in cusub adiga ka imaanaysa marka meeqa isku haysataa saddex isku haysataa kii gaadhka ku siinay iyo kuwa kale oo gaadhka ku siinayaan iyo adiga wax ka imaanay oo gooni ah wixii marka adiga waxa ka dhigayaan wax unique marka taas asleeya qofka oo aan jaanis ku hayn barnaamijkaas inuu kaga faa'iideysto aad iyo ma sa hada sheegtay adduunka wuxuu iska noqday digital youtube-ka ayuu ka baran karaa haddana waxa way fursada fiican qaabka hada sheegtay inaad koorsooyin soo wado oo ay ka baran karaan ayagoo si online u baran kara guryahooda joogaan af Soomaali ay ku baranayaan runtii waxa weeye arrin weyn oo bogaadin mudan weeye waqtiga noqon doontana dee platformka waxa weeye forsi baad kala socon doontaan social media haysa hada aniga as a website dad badan baa weydiiyay mugtaa hada artistaha kaliya website u sameysana firi example marka ku dhaay dadka waa in aan ugu horeeya ma aha inaan ku faana in aan ugu horeeyo laakiin qofka waxa la rabaa markuu shaqadiisa ku dhex jiro shaqadiisa siyaabo kasta ay ku horumari karto oo u sabaran tahay inuu sameeyo macnaha markii wax ka maqan yihiin hadaa ogtahay in wax ka maqan yihiin stage kaas inaad joogto waa level up like maanta suuda wata suudka tayga nooc ugu haboon hadaad ogtahay waa level up waa wax wanaagsan dadka qaar meesha u socda ma garanayaan dad mustaqbalka visionka akaleeda maxaa ma ku sheego qofka dadka qaar ma ku sheegi karaan wuxuu ku leeyahay waa noolaa mustaqbalka inuu macna sameeyo baaro ama mustaqbalka inuu waxaan guul gaaro guul aan la qorshayn guul laakiin wixii dalmi yaqaan waqtina loo specific uma aha marka website baad leedahay ana hada website yes website sawir ku iibisa waa iibiya haddaba waa uu shaqeynaa laakiin weli ma launch kareen weli ma launch kareen insha Allah haday macquul noqoto linkiga waxaan soo dhigi doonaa description-ka weli ma launch kareenin huya qorshaha rabtida ku sameeysid website-ka oo in sawirada ayagoo art iyo qofku online ka dalban karo ku gadan karo asaas okay asaas sawiro hore u sameeyaa jiro markii artiga la joogo hal abuurka waxa la dhahaa hal abuurka waa laba shay mid hore u jiray hal abuur hore u jiray ee qof ka horeeyay sameeyay ina wax ka bedesho meegan cadda madow buu ahaa waxa ka dhigtay cadaan style-kiisana waa ka bedeshay style-ka waxa ka bedeshay meeshu kan kaga tagay wax baa ka dhigtay that's creative waa hal abuur waxa kale hal abuur noqon karo in wixiiba adiga aad ikhtiraacdo from scratch marka laakiin ma aha hadii ani meegan sameeyo oo aan wax ka bedelo copy sameeyo maahan waxa la dhahaa inspiration wixii waa aragtay laakiin waxa jirto wax kale oo adiga ka dhex guuxayo lacala haduu saan ahaan lahaa ka waran ma fahanti marka dadka artiga sameeyo mostly waxa waaye dad oo laba nooc u kala baxa kuwana waxay sameeyaan reference ama commissioned work waxa la dhahaa kuwana waxay sameeyaan waxa la dhahaa body of work commissioned work waxa waaye sawir baa ii keensani qof sawirkiisa ii keensani waxa ii keensanay landscape ii keensanay waxa waxaan ii sawir looga ii keensanay ii sawir waa reference waa wax hore u jiray qofna waxa wuxuu ku leeyahay maskaxdaada wax ku jira u baahanaa farxadda ama murugada wax iga sameey kaasna waa body of work adaa iskale adduunyada marka lacagaha ugu waaweyn ee art la kala siisto hadaa aragto waa Bandar Qaasim Boosaaso si ahaan jirtay boqortooyadii heblaayo ama boqortooyadii hebel maadaama sheeka biska heen aan sawir ka heenin hatta sawir ka sameeyso waa lacag weyn waa lacag inaba la soo koobo aad sawirada imagination-ki sawirada hal abuurka aad loo gataa wali waxa jira kuwa website-yada culculus lagu gato dhaag website-ko kale marna ma isku dayday markii hadda inaad sawiro sameyso khayaal ah
oo ka baxsan dadkan waxay ku fakari karaan tusaale inaad hadda boosaasoo kale waqti hore ka fakadhi laakiin inaan waxaan bajirin adigu madaxaada ka milaawaash sawir hore ugu sameeyay jirtay xitaa waxaa jirtay barnaamij la dhaho hooy oo markuu u wareysay lagu soo bandhigay madaxda qaranka 2023 dadka dhan 19 artist oo international iyo local iskugu jireen cadaan iyo Soomaali ajaanibi DS bas iskugu jireen marka mostly waxay keenayeen sawiro gacan lagu sawiro oo painting ah kuwa la daabacay iyo kuwa qaar oo photographer ah ani laakiin sheekada soo waa bedelay geedka caadiga ahaa ee magaalada ku yaalo go'an waa soo qaaday waa fuurari geedkii fuurariye meel kale ku soo xiray marka dambe dadka waa yaa soo socotay geedkan ma arteena ina arka filaya muuqaalka oo masxaf qaranka lagu soo ku arka waagaasna waxa aad u kacsanaa ololaha ama wacyigelinta climate change isbedelka cimilada sababna inay u tahay geedka waa harsanaa waa beernaa faa'iido badan ka keenna haddana anu inta og daawo ahaan oo isticmaalnaa waa cunaa anu inta og geedka u fuureerisay markuu muxuu ahaa geedku wuxuu ahaa geedka in qalad laga galay ma ogtahay waxa markii koobkan markuusan yahay hadda la fuureeriyo waa fahmaysaa in si khaldan loogu talagalay maaha waxaan ahayd indirect message oo waxay ahayd geedahan la jarin geedka in la jarin in la fuureeriyo geed fororsan badii la arko in wax ka khaldan yihiin in la fahmo xididkii waa kor jira muxuu baxaa aadiya marka runtii waxa weeye waa message aad u culus oo ay fahmi karaan dadka maaragtay ilaa unsos qolada unsos climate change UN to gaari way imaadeen way arkeen ka falceliyeen xitaa geedka wuxuu abuuray in madaxda qaranka la dhaho 20 artist tartan la gelina oo kadib feedback ka yimid geedka ka yimid waxa garta 20 artist tartan la geliyo waxyaabo kale mashruucyo kale badan museumka loo keeno marka it's really hard ina genuine ina soo qaado maanta ina inta soo istaago qof kasto qof maanta markuu ku arko wuxuu rabaa isla markiiba meesha taanta inuu soo istaago like waa meeshii kaaga soo bilaabo ku dhahay waxaan rabaa ina ka bilaabo meeshu hebel hadda joogo Soomaalidu inta badan waxay caan ku tahay high emotional intelligence wax wanaagsan buu wuxuu arkayaa nin u kala fadhido baabuur there is no question oo weydiina qofka what's the behind the scene nolosha soo madhay ma ka fakarayo wuxuu rabaa shaatiga hadda qabtay inuu xirto waxa arkaysaa nin hantiilaa uu arkayaa ciyaal haysta baabuur haysta asagoo aan dhalinyarada wuxuu ku fakarayaa nolosha inuu galo waa sababta dhalinyarada inta badan asagoo isku murjinaa sababta u tahriibayaan qaybtood waxa weeye inay nolol qurux badan degdeg ku galaan macquulna ma aha nolosha wadamada kale waxa arkaysaa wiil baa hooyadii ama aabihii waxay yihiin caanuley ama wuxuu sameeyaa aniga waxa aaminsanahay cabdinaasir ahaan dadka baxa ee taariibka aada ee safarka gala creative ama qofka hal abuurka leh waxa uu haysto wadanka hadda aniga muqdisho waxa la soo maray xili Ethiopian oo liif luuq u saaran yahay macnaha hadda marto adi iska day ari haduu meesha maro la dilay macnaha xiligaas la soo maray macdala iska day hadeero nabad ee oo 8 saxaabinimo la socdo oo waaga kugu bariyay adoo had 10 saxaabinimo hadda Muqdisho tagto casho waa helaysaa xiligaas joogna macnaha oo internetka ugu wanaagsan Afrika haysano oo amni la haysto oo ay fududahay message-ka inuu meel dheer gaaro internetka dunida dhan isku wada furan yahay marka waxa aaminsanahay aniga cabdinaasir ahaan qof kasto ay taariib ku baxa wadanka ka taga wuxuu ka cararay inuu noqdo qof hal abuur leh markuu halka tagana lacag asaa u lahayn buu ku noolaana lacag asaa lahayn waxa ka wada nolol fudud raasay nolol adag ma raasay qofka saawad ognahay dunida dhan ay xustayna qof kasto horumar gaaray waxa waa qof nolol adag soo maro noloshaas guul ka gaaray adag baa waxay ku diyaarinaysaa caqabad firi moogtahay ina caqabado badan soo marto waxay ka dhigaysaa ina tahay qof wax kasto oo soo maro la jaan qaadi karo hadday dhib soo marto la jaan qaadi karo hadday dheef soo marto la jaan qaadi karo qofkan haddaa rafaad soo marto haddaa dhafar rabto haddaa dhafarka naftirkiisa wuxuu u baahan yahay inaa isborto inaad dhafri kartid macnaha aniga kula hadlaa dhafar agteeda waxba kama ahan 2 maalin 3 maalin waa dhafri karaa isku daba xiji karaa because of waqtigaas saas iga soo dhigay macnaha marka qofku waxa la rabaa waa inuu u dhibtoodaa waa inuu u rafaadaa waa inuu
waa inuu isbaraa inuu nafsadiisa dhibo soo horumar ku gaaro soo heer ku gaaro laakiin waxa rabtaa inaad noloshii rafaadkii dhibaatadii dhafarkii ka leexatid u gambisi skip inta dhahdid shortcut inuu qofku nolol qurux badan hore ka galo qofkaasna nolosha quruxda badan haddii xataa gashin kuma raayay kadho ma haysan kadho sabab la xiriira dhibteeda ma soo marin marka fariin waxaan u direynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibaysa wadanka waxay dhahaan dadka qaybteen wadanku sidoo ahaa hadda ma aha fursadaha jira dad baa aaminsan waxa weeye dhalinyaradu ayaguna wuxuu dhahayaan anaga muhiim ma aha wixii hore jiray haddadan dhibaatadana jira maxaa laga qaban karaa waxa la dhahaa inta badan waxba kuma dhismaan degdeg waa ognahay wax walba wadanka ka jira laakiin waxaan jeclaan lahayn in loo dulqaato loo sabro oo waxaan aan anagu isku dayno inaan bedelno ilaa aan madaxeena bedelno qofku waxa leeyahay ilaahay ma bedelo ilaa naftiisa bedelo waxa kaliya wax lagu bedeli kara waa aqoonta oo qofku inuu barto waxan oo waqti geliyo energy u geliyo marka tan ugu weyn waxa weeye Cabdinaasir waxa ka soo gaarsiiyay waa aqoon uu raadsaday aqoonta ma aha mid jaamacadda kaliya taala experience-ga dadaalka isku taxallujinta waa aqoonta qofku haduu raadiyo wuxuu jecel yahay in geliyo horumar buu gaarayaa waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa Soomaalidu waa dad aad isku caawiso isku garab istaagta cid walba oo Cabdinaasir laakiin ina quraxaysataa ina quraxaysataa ina la imaata macnaha caawinta waxa ka horeyso inuu qofku naftiisa u diyaarsan yahay aad fursadahana marka qaarkood kuwa adiga ku muuqdo waxa jira kuwa kale ku muuqan marka qofka walaalkaayo ku saamaxa inuu ku yaala aday fursadan ku taala ka faa'iideyso kuumana yeeri karayo adu hadaadan diyaarsanayn qof diyaarsan baa loo yeeraa marka inay ayaga laftarkooda fursada ay ku tusaan ama kaaga faa'iideeyaan laftarkeeda wax weyn mar qof walba oo Cabdinaasir garab ku siiyay wax walba ha ahaataba ama ka caawiyay waa u mahad celinaa waayo waxa weeye fursadan iyo qofkan aad arkaysan waxa wax ka soo dhigay caqabadihii iyo waaya aragnimadii iyo dhibaatooyinku soo maray wax ka bartay waxaan rajaynaynaa dhalinyarada kale inuu u noqdo tusaale oo artist-ka waqti dheer baa hadda soo wadnay programka uu dheeraaday runtii mana dareemin waqtiga dheer waana ku raaxaysanay wada sheekaysiga quruxda badan waxaan rajaynayaa idinku inaad ku raaxaysateen markan kaliya noqon mayso inaanu Cabdinaasir sheekaysano marar kale waa sheekaysan doonaa ama Muqdisho ha noqoto meel walba Soomaaliya kamid ah noqoto waxaan ku leenahay waa mahadsan tahay shaqo qurux badan baa qabatay waan kaaga mahad celinaa sidoo kale Cabdinaasir waxa ii sheegay sawir qurux badan uu sawiray oo ka sameeyay buuraha calmiska waagi markay ciidanku qabsadeen calanka ka taagay oo ugu talagalay madaxweynaha Puntland inuu gudoonsiiyo haday suuroodo warajayna fariintan inay durba gaadho waxa weeye madaxda uu rabo inuu Cabdinaasir gaarsiiyo hadaan message xagan ka dirayso sawirka muxuu ku saabsan yahay muxuu yahay aragtidaada ku aad horta inta gelin waxa rabaa inaan ku daro hal dhib ay haysto dhibkii haysto waxa waaye ani madax badan la soo kulmay dadka sida madaxda u maleeyaan iyo sida madaxdu ay tahay ismala dad badan baa wax wareeyay hebel baa la kulantay wax ku dhiibay qof walba meesha bugtu ka hadlaya aniga waxa nolosheeda waqtigan dambe 25 24 dadku ugu badan la shaqeeyay dad madaxay ahaayeen xitaa madaxweynayaal la soo shaqeeyay wasiirada la soo shaqeeyay wasaaradaha la soo shaqeeyay ilaa hadda qaarkood la shaqeeyaa qofka banaanka jooga cycle-ka adiga ku jirta banaanka ka jooga wuxuu arkaa sawirka adiga soo dhigtay TikTok ama Facebook oo ama isku soo sawirtay madaxda ama iyaga ay ku soo qaateen reebel waa u fadhidaa qaaluu ka fikiraya qof adna waxay ka tahay magacaaga meel dheer gaarsii oo hal ugu barto marka ku dhahayana magaca isaga keenay lacagta taasi waa magac ka dambe waxa wixii ka dambeeya iyaga lacag imaanay macna mugta inta sarabina ku daro hadda garow jooga dadka muuqaalka daawana dadka muuqaalada hore u soo arkay TikTok soo arkay anoo madaxweynaha la soo yaala madaxweynuhu shaad ka soo qaatay dadka kale sawirkan iyo muxuu ku saabsan yahay horta niyahow in la isdhiir kaliya ma u baahna in lacag la isku dhiir geliyo in hadal la isku dhiir geliyo annaga Soomaaliya sideeda banaan waa bilow qurux badan Soomaaliya waa dad wanaagsan
khaasatan marka ka hadlayno Puntland waa gobolka kaliya ee amni markii la dhaho si guud Soomaaliya waa gobolka kaliya lagu asteeyo macnaha reer xamarku inta badan gobol waxay u yaqaanaan isteedyadan filaya marar badan laakiin anagu xaggan gobol markaa maqalno waa gobolka Nugaal gobolka Bari gobolka Mudug laakiin state baa ka wada state maamul goboleed macnaha maamul goboleed ama sida loo dhaho Puntland markii la isku dhaho kale si guud Puntland waa meesha kaliya ee lagu asteeyo meesha ugu amniga badan wadanka Soomaaliya anigana markasta oo ku sheegay waxa u taaganahay magacayga iyo magaca farshaxanka Soomaaliyeed iyo magaca Soomaaliya dhanba inaan aragti positive ka gudbiyo sababta sawirkaas u sameeyay wuxuu ahaa aniga ka artist ahaan inaan ku taageero xirfadeyda ciidanka Puntland shaqada iyo dadaalka iyo juhdiga iyo naftooda iyo dhiigoodii iyo waqtigooda ay u horeen inay nabadda ka shaqeeyaan lacag ma awoodani lacag ma haysto laakiin waxa awood waxa waaye xirfadeyda artiga inaan ku hormariyo ku bogaadiyo meel kasta oo aan gelin karo inaan geliyo dunida ii dhow ee aniga dunideeda ah inaan tuso in ay Puntland ama Soomaaliya ay tahay dal nabad dad ka shaqeeya nabadda dad wax walba oo nabad qusaysa hormuud ay ku weyn tahay shacabka Puntland inay yihiin dad nabad ka shaqeeya oo wax arki karta darbiga dheeraha sameeyeen kaliya aan ma sameeyeen shacabka magaalada jooga intay imaadaan war ma sawiri karnaa soo gala oo sawirayeen marka su'aalaha ugu weyn markay la weydiina wuxuu ahaa sababta darbigan dhan u sawiraysa wax kugu dhilay muxuu ahaa anna waxa lahaa walaal ani ciidanka lacag isa zaanad uma haayay laakiin message ka gudbinayo dunida u gudbinayo waxa waaye wadanka inuu nabad yahay inaan tuso dadka marka taas ay ugu dhalisay ciidanka qaybada kala duwan ama waxyada kala duwan Puntland inta salaan ugu diraya sawirkan uu yaala xarjeena inuu madaxweynaha maartay ama inuu gadoomo ama inuu gaaro mar dhow hadiyad marka dhahayna ma ahanta waxa inta la soo qaaday meel suuray waa hadiyad ka timi farshaxanista Soomaaliyeed awalna waxa weeye ku koray Puntland ku barbaaro waxna ku bartay inta badan waxaan dhahnaa reer xamarku inta badan akhbaar badan kama hayaan laakiin aad soo ii sheegtay waxa family-gaaga degan Boosaaso akhbaar badanna waa ka haysay ciidankana waxa weeye mar walba waa la socotay runtii anna ciidanka iyo mar walbana waa u mahad celinaa meel walba buuraha dhaadheer meelaha ugu kulul Soomaaliya qayb bay ka yihiin xilliga qabowna meelaha ugu qabow xilliga la joogo inay wili ayadoo sanadka bishii 12 hadda dhacaysay wili halka joogaan laftarkeeda waxay tahay wax weyn qalbiga aan ku ahayna waa idin ducaynaa waa idinkaga mahad celinaa waxaan rajaynayaa farshaxankaasna inuu gaaro ciidin mudnayd forsiina waa uga mahad celinaa programkan dheer maxay tahay fariintaada kuugu dambaysa oo programkan ku soo gabagabaysaano maskaxdayda way isdagaalaysaa 100 fariimood deerta inaan dirto laakiin fariinta dira waxa waaye marka hore horta qof kasto dhalinyaro ah waqtiga uu haysto ama wax ugu muhiimsan noloshiisa uu haysto waa energy-ga uu leeyahay intuu dhalinyarada yahay energy-giisa inuu ka faa'iideysto raadi waxa adiga ku wanaagsan tahay marka hesho horumari dadaal rafa aniga ilaahay waxa kaga mahadiyaa sometimes rafaadka iyo problemka iyo shidada aan dhaxda ka galaayo waa wuxuu ilaahay igu talagalay inaan wax ka barto macnaha jaanis ku markasta caqabad walba aniga markay caqabad igu dhacdo example ku siinaa haddaan barnaamij wada example hadaa ku siiyo hadda waxa u tartamaya International Somali Award oo ka dhacay London waa awoodi waay inaan London tago because of passport Soomaaliya waa lagu adkiyay meeshaas waxa ka barta waxa waaye in passport Soomaali uu meel dheer gaari karin bedelkeedii wax kala sameeyna example kale hadda tartanka ku guuleysanin taas macnaheed maaha inaan mudneen dadaalkii iyo juhdigii meesha ku gaaray laakiin still waa si dadaala waa inaan u diyaar garowdo markaa waa still waa inaan si dadaala marka sometimes
caqabada naftirkeed jaanis ku jirto in iyada naftirkeed laga faa'iideysto in ilaahay la tala saarto maskaxdaada hadday wax ku soo dhacaan sabab baa jirtay ku soo dhacdo wadadii aad ku rumayn lahayd inaad qaadid si guud ilaahayna la kaashado si guud waxaa rajeynaa Soomaali meel kasta joogto inay farshaxanka ama artiga ay taageerto waxa waaye idinka waxay ku nahay farshaxanka in meel dheer la gaarsiiyo sida fanka meel dheer loo gaarsiiyey suugaanta meel dheer loo gaarsiiyey farshaxankana in meel dheer loo gaarsiiyo Somali art to the world waxa kaliya aniga hadda ku faano haddii la raadin la heli karo almost 22 years oo bilaabay hashtags waxa la dhahaa Somali art to the world hal mar aan koobka kor qaadno Somali art to the world marka fariinta ugu dambeysa ugu gudbina waxa waaye dhalinyarta hala taageero hala bogaadiyo hala dhiirigeliyo dhalinyarta naftirkoodii waa inay quraacda la yimaadaan kadib loogu daraa waa inay quraacda la yimaadaan quraacdan waxay ku imaan kartaa waa inuu dadaalaa waa inuu rafaadaa maanta inaad qof jaanis adoo ka raadinaya qofkii jaanis ku diido taleefankaa qaban waaye jaanis ku jirto waxbaa ku jira macnaha ku jirto macnaha wax ka baro hore u soco qof kastana sharaf iyo miisaaniyad iyo muxtaram iyo wax badan buu leeyahay maalin waxaa gaari doonto in maalintaada noqoto laakiin inta maalintaada ka gaarayso waa inaad sii dadaashaa waa inaad keep consistent samaysaa marka meeshaas u baxaa waxaan ku darayaa hadalka Cabdinaasir tan ugu weyn waxa weeye hadalkan hadda uu ka dhawaajiyo inuu International Somali Award uu tartamayay macquulna u noqon weyday inuu ka qayb galo maan la weytana waxa jiray gabar dhalinyaraayo ka qayb gali lahayd boxer Soomaali mataleed Mareykanka qayb gali lahayd inay u suuroobi weyday ayadoo xataa haysata baasaboor European in Mareykanka tagto sabab la xiriirada in Soomaali soo booqatay in dhalinyarada hal abuur kale oo dunida rabta Soomaali inay ku matasho in loo fududeeyo inay matasho Soomaaliya ugu yaraan dadaan u qalmin ba waxa la siiyaa baasaboorradan la yiraahdo surface-ka ama diplomatka in dhalinyarada u baahan oo rajooyinkooda iyo riyooyinkooda raba inay ku rumeeyaan in laga lagana caawiyo inay meelahaas oo kala tagaan xilliyada u baahan yihiin fursadana loo abuuro qof walba oo Soomaaliya oo dhageysanaya muuqaalkanna waxaan kula dardaarmayaa in dhalinyarada intuu awoodo uu garab siiyo dhalinyarada rajo loo abuuro waliba dadka ay mas'uuliyadoodu tahay in shaqada ay qabsadaan ay ka go'an tahay waliba ay ka go'an tahay aniga wadankayga waa iga go'an tahay macna inaan wadankayga wax u qabto shakhsiyadeena wax u qabto laakiin dhibaatada jirta waxay tahay qof wanaagsan inuu ku soo aadaabo adagta aad arjayna waxa way dadka aan horeydii shaqooyinkooda ay u ahayd laakiin qaban waayay inay isku dayaan inay ilaahay uga cabsadaan waxa way mas'uuliyadka la saaray dhalinyaradana garab siiyaan caawiyaan markaan saan leenahay micnaheedu ma ayna anagu wax kale ku haysan waa mas'uuliyadii lagu saaray baan kaala hadlanaa xumaanna ma ahana waa wanaag qof ku yiri mas'uuliyadda ilaahay uga baq waa rajeynaa waxa weeye programkan aad wax badan ka faa'iiday haddii aad ka faa'iideen nagu soo biir oo nala soco mar walba idinkaga mahadcelinaa xilliga waqtiga dheer aad nala soo joogteen Forsi Cabdinaasir waa mahadsan tahay imaatinkaaga farxadna way noo tahay insha Allah mar badan waxaan rajeynaa inaad muuqaalo badan oo noocaan sameeyno intaan ku kulmi doono kanoo kale salaamullah